gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Saleebaan Ramax ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo dhismayaasha ka socda dhulalka danta guud ee magaalada Burco. Go'aankaasi uu ku joojiyay gudoomiyuhu waxa soo dhaweeyay xildhibaan Sheelo Fadhil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. Sidoo kale waxa uu xildhibaanku sheegay tallaabada gudoomiyuhu qaaday inay soo dhaweeyaan ka xildhibaan halkan waxaan uga hambalyeynaya barasaabka gobolka oo si wacan yeelay 100% hantida ummadda ee laga gaarsiinay xilliga kala guurka si wacan u xayiray shalayto meelo badan buu soo xayiray oo ay ka mid tahay egas in sidii hore oo haddii beedankeeda leeyahay si aan sharci ahayn loo waxaysanayay iyo goobo kale oo badan aad baan ugu hambalyeynayna hantida ummadduna waa wax qaaliyo in la wada ilaaliyo ay waajib tahay hadday waddooyinka tahay hadday dhismayaasha tahay hadday dhulka danta guud ee ummadda tahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna intuu soo xayirayba waa ka mid ugu weyneed in sida howlal waaweyn oo ka mid ah iyo meelo badan oo kale oo ay waddooyin la goynayay iyo ka mid yihiin hanti ummaddu leedahay xilliga laga gaarsiinayna xilliga kala guurka waxaan barasaabka iyo haddii beedankeeda leeyahay u soo jeedinayaa iyo guddida ilaalinta hantida ummaddaba halkii la odhan jiray egas haradhiigta oo haddii beedankeeda la haradhiigta hore aanu ka raray si sharci darraaba ayadana lagu bixiyey dad shacaba baa googoosanaya oo laga iibiyey waxaanu dawladda dhammaanteed dawladdan xiluu ka sii dhammaanaya iyo kale soo socotaba u sheegaynaa iyo hanti dhowrka guudba halkaa la odhan jiray egas halkii gowraca xoolaha in la joojiyo si sharci darraabay ku baxday golo bixiyeyna ma jirto oo cidka ku wareejiyey hanti ummadda looga soo xareeyeyna ma jirto waxaanay ku fiicneed iskuul tallowga dadka ardayda ka timaadda tallowga sheekh ibraahim bay yimaadaan oo 6,000 oo arday isku dul fuushan tahay oo aan qaadi karaynin halkaa waxaannu doonaynay inaannu iskool ka dhisno golo ahaan si degdega oo khaldan baa iminka gacmo shacab loogu wareejiyey markaa meesha xaradhigta la yidhaahdo ee hore ee laga guuray xaradhigta hore aanu ka raray waxaannu leenahay ha la joojiyo waana hanti ummadeedoo si sharci darraa loo qaadanayo waxaanaannu ugu talagalno goluhu isku raacay in iskuul laga dhiso warar sheegaya inay maayirka iyo maayir ku-xigeenku bixiyeen waddooyin laga dhex dhisay guryo isla markaana ay iibsatay ganacsato reer Burco waxa uu yidhi sida tan waa la joojiyey way jiraan dhammaantood laakiin waa la joojiyey barasaabka shalayto go'aan buu soo saaray xayiraad oo meelo badan saamaynaysa ilaa 9 meelood bay saamaynaysa waa la joojiyey GTN magaalada Burco.